رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد البر حالي ورئيس الجارسية تلفزيون القاهرة ee dalkaasi Masar ee waxa uu sheegay in qatar weyn ay ka soo socoto aqoonsiga Israa'iil ay siisay gobolada waqooyi ee dalka isla markaana ay ugu aqoonsantay dawlad madax bannaan. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ay Israa'iil ay heshiiskaasi u sameysay uu yahay in dadka shacabka ee reer Falastiin ay ka soo musaafirisay dhulkooda isla markaana ay u soo rarto dawlado kale oo ay ka mid tahay Soomaaliya taas oo sheegay in marna dawladda federaalka Soomaaliya aysan aqbali doonin. رئيس الوزراء حمزة عبد البر ayaa waxa uu sheegay in madaxda maamulka Soomaaliland heshiiskan ka hor ay calaaqad la lahaayeen Israa'iil isagoona sheegay in madaxweynaha maamulkaasi Soomaaliland Abdirahmaan Cirro oo si sir ah ku tagay dalkaasi Israa'iil isagoona la soo galay heshiis dhigaya in shacabka reer Falastiin lagu soo raro qayb ka mid ah Soomaaliya ay ka mid tahay gobolada waqooyi ee dalka taas bedelkeedana Israa'iil ay saldhig military ka samaysato meel ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri shacabka reer waqooyi waxa lagu sheekeeyay in loo keenay ictiraaf laakiin taas bedelkeeda ma oga dhibaatada ugu weyn ee ka soo wajihi karta haddii heshiiskaasi hirgalo. waxa uu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa beesha caalamka iyo ururo caalami ah ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii heshiiskaasi loo baabiilaa isla markaana meesha looga saari lahaa. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo wax laga weydiiyay bal waxa ay dareebeen markii ay maqleen in Israa'iil ay aqoonsatay Soomaaliland ayaa ku jawaabay in wax lagu qoslay ahayd qaabkii xataa heshiiskaasi u dhacay isagoona sheegay in video call laga soo wacay madaxweynaha maamulka Soomaaliland isagoona ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu aqoonsaday taas oo ku sheegay inay ahayd wax lagu qoslo.